واجران meelo culays isagaan meelo culays ka jira waajiraan iyadana waa ka gudbinaa insha Allah hadaan anagu si duubanahay waa ka gudbinaa insha Allah maamul goboleedyada iyaga nafsigoodu qof walba si haw arko waa qayb ka mid ah dibeedka socda oo dowladnimadana ay ku dhismayso oo aan ku fasirayno muxuu yahay federal iyo muxuu yahay confederate anagu waxaan aaminsanahay in kastoo qaarkood ay lagu dacaayirayaan ay yiraahdaan dowladda dhexe waa dowlad centralista ah waa dowlad awood inay qaadato annagu waxaan rahnaa federaalka saxa annaga ah maxaa yeelay waxaan rabnaa dowlad dhexe oo xoog la rabnaa waxaan rabnaa dowlad dhexe oo ciidan fiican leh oo dalka difaaci karta waxaan rabnaa dowlad dhexe oo arrimo dibadeed oo adag leh waxaan rabnaa dowlad dhexe oo immigration iyo xuduudadeeda ilaalisa waxaan rabnaa dowlad ciidan adag leh dhaqaalaheedana iyadu kontroolsho karansigeeda iyadu kontroolsho dowladda dhexe aan rabno waa noocaas aniguna waxaan u arkaa inaan nahay federal system inaan nahay wixii ka soo horjeeda taas waa anti-federalism waxaa jira wax la wada leeyahay oo aan ogolnahay in la wada lahaado iyo wax dowlad goboleedyadu ay leeyihiin oo khasab tahay inay qabato oo ah adeegii laakiin dowlad dhexe inuusan muran ka gelin qof walba oo Soomaali ah khaasatan dhalinyarada dowlad dhexe oo xoog leh inay jirto oo dalka difaacda wixii ka soo haro waxa leeyahay confederate annagana confederate ma doonayno ama loose federalism ma doonayno macnaheedu waxay tahay wada shaqayn fiican naga dhaxaysa laakiin debate yaan ku jirnaa idinkana waxaa la rabaa debate-kaas inaad qayb ka noqotaan oo aad nasaxdaan annagu haddaan khaldannahay xitaa nasaxdaan iyagana aad saxdaan haday khaldan yihiin maxaa yeelay mustaqbalka Soomaaliya xukuumad ma laha shakhsina ma laha annagoo dhan ayaa wada leh waa mustaqbalkiina weyn waa future-kiina weyn